السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أي موقع عصب muuqaalkani waa saddex oo muuqaalkii saddexaad ee markaasi aan kusoo qaadanayno applicationada ugu khatarsan editingka ama photo editingka marka mobilka la adeegsanayo. Okay, applicationkan waxa uu noqon doonaa applicationkii saddexaad ee markaasi aan kusoo qaadano waxa uuna markaasi magaciisu noqon doonaa Bowler. Bowler waa application aad markaasi ku habeyn karto sawirada aad ku gasho mobilka ama camera aad ku gasho. inta badan applicationka waxa isku dhow yihiin oo markaasi ismatalanba applicationka Adobe Photoshop Lightroom ay ismatalan oo inta badan sawirada colorka ayuu markaasi ka saxaa oo sida aan hadda ku arki doono colorka ayuu inta badan ka hagaajiyaa sawirada si qurux badanna markaasi waad ugu habeyn kartaa. Bowler haddii aanu eegno markaasi aynu guda galno qaabkan ayuu markaasi kugu soo baxaya. Bowler waa application bariya dhawood soo baxay si qurux badanna markaasi sawirada hagaajiya inta badan dadku ay adeegsadaan. Hadda aan sawir eegno markaasi sawir baan eegi doonaa sample sawirkan ayaan markaasi ku tijaabin doonaa waxyaabaha markaasi uu ku fiican yahay iyo markaasi adeegyada uu leeyahay intaba. Applicationkan Bowler waxa aad ku habeyn kartaa kalarada. Iminka sawirkan haddii aanu eegno all toolska haddii aan ku dul dhufto halkan waxaa ku jira toolal badan baa halkan ku jira. Sidoo kale import style markaasi perspective border crop color waxyaabahaas oo dhan markaasi kaaga shaqeynaya. waxa aad markaasi sameyn doontaa midka ama colorka adigu waxa aad rabto inaad markaasi sawirka ka hagaajiso ayaad halkan ka dooran doontaa. Masalan imika waxaan dooranaynaa detail tan ay ku qoran tahay haddii aan doorano waxa markaasi halkan ku dhan qaybtii markaasi lightingkii colorkii markaasi HSL iyo toning effects waxyaabahaas oo dhan baa halkan ka buuxa. Sawirka colorkiisu qaabka uu egyahay waad aragtaa. hadda qaabkaas ayuu ahaa hore haddana qaabkan uu noqonaya marka qaabkaas uu noqonaya waad aragtaa ma filaya. haddaba balka haddii aynu wax ka bedelno midabka ama colorka haddii aynu wax ka bedelno qaabka uu ekaanayo aynu markaasi eegi doonaa. Okay, waxa markaasi sameyn doonaa qaybtan waa midabkii aad ka kordhinaysaa ama qaybtii lightka waa markaasi aad ka kordhinaysaa oo waa exposure-kii weeyaan. Sidoo kale brightness-kii qaybtan aad ka kordhinaysaa. halkan aad markaasi ka kordhinaysaa marna waa cadaanaya marna iftiinka ka yaraanaya. Okay, bal hadda iftiinkan waan ku yar badin doonaa sidoo kale colorna waan markaasi ku yar dari doonaa. Contrast-ga qaybta colorka xoojinta halkan aad ka eegi doontaa. Okay, qaabkaas markaasi u ekaanaya. waxa markaasi halkan ku jira markaa highlight-kii shadows-kii whites-kii iyo blog waxaas oo dhan markaasi ka sixi doontaa sawirka. Okay, tusaale daba waxa markaasi aan sameyn doonaa in qaybtan colorka aynu eegno hadda maadaama colorku nooca yahay bal haddii aan xaggan soo jiido qaybta saturation-ka waad arkay inuu casaanayo. sidoo kale haddaynu qaybtan vibrancy-ga ka yareeyo waad arkaysaa markaasi inuu casaankii badnaa ka soo yaraanayo. Okay, HSL qaybtan waxa ay ka shaqeynaysaa hadba midabka aad doorato ayay markaasi ku badinaysaa. hadda casaan baa dooran casaanka haddii aan qaybtan rear saturation-ka dooro waad arkaya waxa casaanaya toobka ama waxa cas ay xidhan tahay markaasi gabadhaasi. sidoo kale midabada kale imika green-ka haddii aan ku dul dhufto waxa markaasi green noqonaya wixii ka dambeeyay markaasi doog ahaa ama caleen ahaa waad arkaya inuu akhtar xoogan uu noqonayo markaasi. sidoo kale waxa aad midabka kaga bedeli kartaa imika tusaale ahaan haddii aan rear ku dhufto oo idhaahdo waxaan midabka ka bedelayaa waxa ay xidhan tahay halkan aad jiidaya kolba qaabka markaasi uu ekaan waad arkaya. haddii aad tirada midabkan ka bedelaya qaabkaasuu kugu bedbedelaya waad arkayna green noqonayso orange ay noqonayso casaan ay noqonayso pink noocaas ay u ekaanayso hadda midabkaasaas u bedeshay. kolba qaabka markaasi ayaad markaasi ku shaqeyn doontaa uu egyahay qofku waxa uu xidhan yahay maryaha midabka ay leeyihiin. sidoo kale halkan waxaa ku jira toning oo midabka aad doonayso aad u dooranayso oo haddii green doonto noocaas oo ekaanaya haddii casaan doorto noocaas oo ekaanaya. Effects baa sidoo kale halkan ku jira oo markaasi zoom balar ah oo haddii aan halkan ku dhufto dhinacyada ama hareeraha waxa uu ka dhigayaa nooca
sidii wax markaasi xawli u socdo oo kale speed ayuu markaasi kaaga sameynaya. Sidoo kale waxaa markaasi halkan uu ku leeyahay waa overlay waxa loo yaqaano oo markaasi midabada aad doonayso aad dhinaca dambe ka marin karto, sidoo kale aad xagga hore ka soo marin karto ama aad ku bedeli kartaba sawirka. Haddii aan kan markaasi ku tijaabino waad arkaya qaabka sawirka u ekaanayo qaab qurux badan. Sidoo kale waad ka kala yareyn kartaa oo haddii aad dhinaca u badiso saasuu kugu noqonaya, haddii aad san tiraahdo dhexdaad ka soo yarmariso qaabkaas u ekaanaya. Laba midab baa markaasi ku samaysmay meeshii. Sidoo kale noocyo kale fara badan waa ay ku jiraan oo markaasi aad u tiro badan oo aad sawirka ku habeyn karta ama aad ku qurxin karto sawirka aad doonayso inaad edit gareyso markaasi. Waad arkaya kolba dhankii aad doonto ayaad u kaxaynaysaa. Sidoo kale halkan waxaa ku jira vive light oo markaasi inuu kalarka xoog ugu kordhiyo, kalarka xoog inuu ugu badiyo ayaa markaasi qaybtan kamid ah. Sidoo kale screen baa halkan kamid ah in midab khafiifa uu u sameeyo. Tusaale ahaan haddii aan kan ku dul dhufto midabkan imika xoogani khafiif ayuu noqonaya ama qaabkaasi ayuu markaasi u ekaanaya. Okay, qaybtan haddii aanu ka noqono gradianka aanu ka noqono waxaa markaasi halkan ku jira iyaguna backgroundno markaasi waxyaabo fara badan ayaa ku jira ood markaasi ka aad rabto aad u adeegsan karta ama aad u isticmaali karto. Waxyaabahaas oo dhan baa halkan kugu jira. Waa application aad iyo aad markaasi u fiican ama aad u wanaagsan oo markaasi aad u bogi doonto qaabka aad sawirada uga habeynayso, qaabka markaasi uu kugu markaasi edit gareynayo sawirada. Waxyaabahaas oo dhan baad markaasi ku jeclaanaysaa. Application kan Play Store markaad kala soo degto waxa markaasi u noqonaya in lacag aad bixiso ama aad iibsato midabada qaarkood ama isteelada qaarkood inaad iibsato. Sida tusaale ahaan hadda haddii aan israahdo halkan ka eeg mid kamid ah qaabka u ekaanayo waxa uu noqonayaa in markaasi ugu dul dhufato uu noqonayo oo ku odhanayo lacag bixi. saas darteed mid aan waxaasoo dhan ku weydiineyn oo markaasi si free aad wax walba markaasi ku adeegsanayso ayaan halkan kugu hayaa. kaasaan qaybta hoose muuqaalka kuu soo dhigi doonaa, halkaas ayaad markaasi kala degi doontaa. waxyaabo fara badan buu ku wanaagsan yahay. Tusaale ahaan haddii imika sawirkan aan is idhaahdo tayadiisa aad u roone ama markaasi clear HD ka dhig, waxaan ku dhufanayaa un qaybtan markaasi ay ku qoran tahay markaasi detail, halkan ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaya. Detail marka ku dhufto halkan sharpenka ay ku qoran tahay, sharpen halkan ku qoran tahay ayaan markaasi dhinacan hadba dhinacan u jiido uu isku bedelaya. Sawirka hadii aan imika sharpenka hadii aan dhankan u jiido clear ay noqonaya ama xoog buu markaasi tayadiisa u badanaysa. sidoo kale waxaad samayn doontaa qaybtan clarity-ga waxa aad ku kordhin kartaa inuu jidhku smooth noqdo iyo markaasi inuu markaasi clear noqdo labadaba. haddii aan magacdhankan u jeedo smooth buu noqonayaa, si yaro markaasi nadiifa ayuu markaasi noqonayaa. aad iyo aad bad markaasi ugu dooranaysaa inaad sawirada ku hagaajiso applicationkan. waa application aad iyo aad u wanaagsan, tayadiisu fiican tahay. sawirka marka aad save garanayso qaybta falaadha korisi jeeda aad ku dul dhufan doontaa, then save new photo baad markaasi odhan doontaa. si tayo leh oo qurux badan ayuu markaasi qaybta gallery-ga kugu save gareynaya sawirkii. waa application aad iyo aad u wanaagsan. sidoo kalena marka aan waqti u helo ama markaasi waxaan kasoo diyaarin doonaa tutorials ama casharo ku saabsan qaabka sawirada loogu hagaajiyo, loogu qurxiyo. waxaasoo dhan waan isla eegi doonaa insha Allah. muuqaalkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday application-kana markaasi si qurux badan aad sawiradaada ugu habeyn doonto. application-kan qaybta hoose muuqaalkan soo dhigi doonaa, halkaas ayaad markaasi kala degi doontaa isagoo free ah, markaasi wax mushkilada markaasi aanad kala kulmayn. sidaas iyo nabaday.